السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي شرفت لي إذا لهانتين ميل كستو aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale jaamac bisle youtube iyo jamsom channel kan wuxuu ku saabsan yahay soo jeedinta imtixaanaadka jarmalka oo loo yaqaano sich vorstellen قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد akhyaarta sharafta leh horaan basaan soo sheegnay waxaan ku guda jirnaa diyaarintii imtixaanaadkii B1ska hadduu alla idmo sida loo qoro waraaqaha waynu bilownay casuumaadda laftirkoodii maalin horaan wax yar ka taabano waynu bilownay waxyaabo kala badanna waa ay soo socdaan hadduu alla idmo laakiin systemka iyo qaabka aynu wax u wadno ayaa waxay tahay inaynu imtixaankii AS5 ilaa iyo B1 aan rabno inaynu isku bixino hadduu alla idmo oo inoo suurto gasho marka imtixaanku wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr laakiin waxyaabaha aan rabno inaan soo horumarino oo kale waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano Mündliche Prüfung oo weliba ah macnaha inaad adiga soo samayso marka ugu horeyso markii lagu leeyahay Mündliche Prüfung waa dhowr nooc bay noqonaysaa laakiin muhiimadda waxay tahay markii la imaado qaybta soo jeedinta oo loo yaqaano sich vorstellen tan ayada ah markii aad wax soo jeedinayso oo kale waa in macnaha aad si sax ah wax u soo jeedisaa marka tii ayada ahayd baan rabnaa inaynu ka bilowno kadibna hadduu alla idmo waxaan ku xojin doonaa sida dhageysiga oo hooqin loo yaqaano listen oo loo yaqaano akhrinta oo loo yaqaano listen iyo qoraalka oo loo yaqaano schreiben marka way kala badan noocyo badan ayay kala noqon doonaan hadduu alla idmo hooqinka wuxuu noqon doonaa ilaa iyo dhowr nooc listenka waxay noqon doontaa ilaa iyo dhowr nooc waxa ugu adag haddii la fiiriyo schreibenka iyo listenka marka mundlichkana oo marka maxaa la dhihi jiray qaybtan inspiration markaynu imaano iyaduna waxay u baahan tahay inaad faham guud ka haysato haddaada faham guud ka haysanna waxaa laga yaabaa xoogaa qolada ku dhageysanayso imtixaanka qaadayso in waxaa weeye ay waxyaabaha ay ku qoraan darajooyinka AS5 oo kale ay ku qoraan meeshii laga rabay inay ku qoraan B1 oo kale marka aynu guda galno akhyaarta sharafta leh waxaynu ka bilaabi doonaa hadduu alla idmo waxa la inspirationka oo hadalka ah marka qaybtan kale bal aynu eegno hadduu alla idmo waxyaabaha la iska rabo ee muhiimka ah B1 Prüfung Deutsche Lernen Mündlich Prüfung sich vorstellen akhyaarta sharafta leh waxaana laga rabaa soo jeedinta qofka markii laga hadlayo in macnaha aad soo jeedin samayso oo adiga nafsadaada iska hadasho marka tii ayada ahaydna marka haddaadan fikir ka haysan laftirkeedana way adkaanaysaa warqadoodina hoos lagaa soo dhigana waxaadan hore usoo diyaarin inaad isla markiiba say tahay aad uga jawaabto 100% xoogaa waad dareemi kartaa inay yara culus tahay marka ugu horeysa waxaa lagaa rabaa meesha aad fadhiisato oo dadka imtixaanka kaa qaadayo iyo adiga aad wada fadhiisataan waxaa lagaa rabaa inaad samaysid soo jeedin ka hor intaada u gudbin waxyaabaha mawduucyada laga hadlayo waa inaad soo jeedin adiga aad samaysaa oo dadki aa isbartaa okay marka tii ayada ahayd waa qaybo kalena waa ay jiraan oo isla mundishki ah laakiin tan waxaan ugu talagalnay soo jeedintii marka soo jeedintii maxaa la iska rabaa waxaa la iska rabaa magacaadii waxaa la iska rabaa meesha aad ku dhalatay waxaa la iska rabaa meesha aad degan tahay waxaa la iska rabaa shaqadaadii waxaa la iska rabaa xirfadaadii waxaa la iska rabaa qoyskaadii iyo waxay ahayd maxaa la dhihi jiray dhalashadaadii inta sano oo jirto waxa aad xiisayso iyo weliba waxa la yiraahdo meesha aad kasoo jeedo aynu buubsino hadduu alla idmo waxa la yiraahdo name waa maxay name waxa weeye waxaa laga wadaa waa magac laakiin waxaa laga wadaa marka ugu horeyso magacaada sheeg name magacaada sheegaysa haddii name lagu yiraahdo waxaad kasoo bilaabaysaa magaca maxaa la dhihi jiray familka oo kalead kasoo bilaabaysaa waxaad leedahay hebel la yiraahdaa waxaa kaloo soo haray waxaa la yiraahdo geburtsort meesha aad ku dhalatay ayadana waa inaad sheegtaa waxaa kaloo la iska rabaa phone ort meesha aad degan tahay waxaa kaloo la iska rabaa arbeiten waxaa la yirahdaa meesha shaqadaadu waxay tahay meesha aad ka shaqayso beruf waxaad xirfad u leedahay waxa la yiraahdo familia adiga xaaladda qoys ahaantaada waxa aad tahay ma qof waxaa tahay guursaday ma qof aan guursan baa tahay inaad iska hadashid alta inta sano aad jirtid da'daada maxaa la dhihi jiray hobby waxa aad xiisaysa adiga herkunft qolada aad kasoo jeedo iyo wadankaad u dhalatay marka aynu eegno
hadduu alla idmo bal qaybta ku xigta iyo sidii aan u taxliilin lahayn oon u furfuri lahayn oon u xalin lahayn. marka wixii waa su-aal baa imaaday, waxaa lagu yiri faqaagan ayaa imaaday ama faqaaga midka rabtid intada rabto waa iska reebi kartaa. bitte stellen Sie sich vor, waxaa ku dhahayo qofka maxaa la imtixaanka qaadayo markii aad waraaqihii iyo wixii la soo buuxiyo aad fadhiisanaysaan oo saas loo soo fadhiisto, wuxuu ku leeyahay marka qofkii maxaa la jiray aad hor fadhiisato intiina dadka kala wada sheekaysi iyo hadallo kale aadan la gelin waa u tegi doonaa hadduu allame. waxaa lagu leeyahay bitte stellen Sie sich vor, fadlan adiga dadka isbar oo soo joodin samee waxa aad tahay macnaha ka hadal wey macnaha. naamihii baan soo qaadanaynaa ugu horeeya, marka waxaan rabaa inaan saan u xifdisaa hadduu alla idmo. inta kaa qusayso adiga waa intaan, tanna waa inaad iska jirtaa ood barataa. marka lagu yidhaahdo bitte stellen Sie sich vor, in macnaa indhaha taagta ma ahan, waa inaad maskaxda kusii haysaa hadda hadduu alla idmo. aynu bilowno. name oo magaca waxaa weeye waxaa leedahay my name is saas oo kale, hebel my name is Adam Bisle oo kale. Herkunft wadanka aad ka timid waxaad leedahay ich komme aus Somalia, ich komme aus Somalia. da-da aad jirtid Alter, ich bin 30 Jahre alt, aniga waxaan jiraa 30 sano. waxaa jirtaa 20 sano, waxaa jirtaa 12 sano. inta aad jirto waxaad ka daba marinaysaa, waxaad ku bedelaysaa meeshaan ah 30ka. ich bin 15 Jahre alt, ich bin 20 Jahre alt, ich bin 22 Jahre alt, ilaa iyo inta aad rabto sii wad. maxaa soo haray meeshaan la yidhaahdo sprechen, meeqa ayaa sprechen waxaa la yidhaahdo sprechen luuqadaha markay imaado meeqa luuqadood ayaa ku hadashaa. ich spreche waxaan ku hadlaa Somalisch, Arabisch und Deutsch. marka Deutsch baad ku hadlaysaa, marka aday ku taalla ama ein bisschen dhe ama Deutsch baan ku hadlayaa dhe, adiga iskale go-aankaas. marka meeshaan la yidhahdo sprechen oo luuqadaha ah waxaad sheegaysaa inta luuqada ku hadasho, ama hal ku hadal ama laba ku hadal. haddaad wax kala aqooninba waxaad leedahay ich spreche Somalisch, Soomaali baan ku hadlaa. wax kale und ein bisschen Deutsch, ama waxa ich spreche Somalisch und Deutsch baad leedahay. waynu kasii gudbaynaa, waxaanu tegaynaa phone out. phone out waxaa laga wadaa meesha aad degan tahay. suicide waxaan deganahay Vone, suicide Vone. ich hadda waxaan deganahay in Berlin ayaan deganahay. ich Vone waxaan deganahay, ich Vone waxaan ku noolahay waa markaan in einer Zimmer Wohnung, guri laba qol ka kooban. ich bin vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen, waxaan imaaday 2 sano ka hor. meeshaasaan ku celiyo. phone out waxaa waayo meesha aad degan tahay. suicide Vone ich in Berlin, waxaan deganahay hadda Berlin. ich wohne in einer 2 Zimmer Wohnung, waxaan ku noolahay guri 2 qol ah. guri 2 qol ah ayaan ku noolahay. ich bin vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen, aniga waxaan imaaday 2 sano ka hor Jarmalka. marka name sida loo soo jeediyo waa kuu sheegay. my name is waxaa waayo hebel. herkunfti meeshaad ka imaaday. ich komme aus meesha aad ka timid. Djibouti haddaa ka timid, Soomaaliya haddaa ka timid, Kenya haddaa ka timid, Ethiopia haddaa ka timid, iyo wixii kaloo ku darsan kartid. Alter, ich bin 30 Jahre alt, aniga waxaan jiraa 30 sano, 20 sano, 25 sano iyo inta aad jirtid. waxaa weeye sprechen waxaa weeye waa luuqadaha inta luuqadoo ku hadasho. ich spreche Somalisch, Arabisch und Deutsch, ku dar Italianisch oo luuqada Talyaaniga. wixii aad taqaanid oo kale ku darso, oo kale ku saasaas ku darso. phone out meesha aad degan tahay. suicide Vone ich in Berlin ayaan deganahay. ich wohne in einer 2 Zimmer Wohnung, waxaan deganahay oon ku noolahay guri ka kooban 2 qol. ich bin vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen, waxaan imaaday
2 sano ka hor Jarmalka. qaybtaan oo eegno familia macnaha familia marka lagu leeyahay family oo caadi ama ahan laakiin waxa waayo xaaladda adiga ahaantaada family ahaantaada xaaladda qoyska oo kale maxaa tahay adiga ma qof waxaa tahay keliya oo aan waxba guursan weli mise waxaa tahay qof guursaday haddaad keli tahay war ma jiro oo halkaad kusoo xiraysaa keli baan ahay haddii maxaa la dhihi jiray aad tahay qof guursadayna waxaa waaye waxaad leedahay waan guursaday intaasoo caruuraan leeyahay familkeena waa wada noolnahay haddaa rabtaan soo gaabsan kartaa marka haddii aad doob tahay waxaa weeye waxaad leedahay waxaan ahay doob haddii aad guursatana guurkaada ayaad sheegaysaa marka familia waxay ka dhigan tahay familia stand meine familia wohnt noch in Somalia ayuu degan yahay familkayga waxay degan yihiin Soomaaliya meine familia wohnt noch in Somalia qoyskayga iyo familkayga waxay degan yihiin Soomaali marka haddii aad rabtana waxaad dhihi kartaa ich bin ledig waa kana ich bin ledig aniga waxaan ahay doob oo kale ich bin verheiratet aniga waa guursaday haddii aad tiraahdo ich bin verheiratet haddii aad tiraahdo waan guursaday waxaa lagaa rabaa inaad wax yar hore usii gasho si macnaha waxaa lagaa rabaa inaad hore usii gasho sida ugu wacan marka mida kalena halkan aan ku yiraahdo kaya talo yar baan siinaya markii imtixaanka aad dabcan sida caadada ah waxaa la galaa marka hore buuxbuuxiska iyo dhageysiga iyo qoraalkii waxaasaa la galaa kadib markay dhammaato waa sida caadiga ah yaa haddana lasoo fadhiistaa oo la isweydiiya maxaa la dhihi jiray waxyaabahan soo joodinta ah iyo waxyaabahaas marka waxaan kula talinaya inayna boobin intaa xifdisaan ha boobina waqtiga ku dila tartiib si caadi ah oona boobsiisna ahayn aan lagu daahsanayn ahayn oo lagu karaahsanaynin xoogaa si fiican u wad maxaa yeelay waqtigaas ay ku eegayaan oo inta adiga ma ka warantin laakiin ayaga waqtiga kuu qorsheeyaan inaad soo joodin samayso haddaa inta sidii waxaa weeye qur-aankii oo kale inta dhinacan ka qabata dhinaca kale uga baxdo aad dareeriso dhibkeeday leedahay macnaha waxaa la rabaa xoogaa waqtiga inaad ku dishid adigana waqtigaas lagugu siiyo ayagana jumladaha waxaa intay fiiriyaan saxnaanshaha jumladaha ay kaa fiiriyaan ay kaa hubiyaan marka waxaan kugula talinayaa intaad xifdiso hadhow ha boobin ee tartiibtaada adoo wixii xifdisan jumlada ka dambeyso si qanaaco leh adoo ku qanacsan tartiib ugu soco saas waa iga talo aan ku noqono meesheena iga raalli ahaada waan ku fogaaday ich bin verheiratet aniga waan guursaday ich habe ein Junge ani waxaan qabaa hal wiil aniga waxaan leeyahay hal wiil eya ama daya midka aad rabtid daya is asaga waxaa weeyo daya is ein Jahr asaga waxa uu jiraa hal sano daya is ein Jahr asaga waxa uu jiraa hal sano hobby maxaa adiga leedahay maxaa la dhihi jiray maxaa jeceshahay oo hobby ku ah maxaad xiisaysaa adiga ich lese gern aniga waxaan jeclahay waxaa la yidhaahdo akhrinta noocee waay maxaa akhrisaa oo jeceshahay geschichtliche Bücher aniga waxaan akhriyaa waxaan jeclahay inaan akhriyo buwaagta taariikhda ah und Fußball spielen marka meeshan waxay noqonaysaa marka iyo banooniga dheelitaankiisa marka waxay noqonaysaa inta hobbies oo kale noqonaysaa maxaa yeelay hal xaba ma ahan oo waa ay badan tahay marka waxay noqonaysaa meeshan hobbies oo kale noqonaysaa waxaa la yidhahdaa marka hobbies waxay noqonaysaa haddii Soomaali ahaan loo fiiriyo wixii adiga balwad leedahay balwad marka maxaa laga wadaa tii la cunaya ma aha laakiin adiga markaste maxaa jecesha inaad qabato marka aad firaaqada tahay waa maxaa jecesha inta badan aala inaad qabatid waxa aad jecesha inaad qabato hobbies waxay noqonaysaa waxa aad jeceshahay ama balwadaada oo kale waa maxaad jecesha inaad qabato marka aad firaaqada tahay ma inaad banooni dheshaad jeceshahay ma maxaa la dhihi jiray inaad wax akhrisaa jeceshahay ma inaad dabaalataa jeceshahay ma inaad basketball dheshaa jeceshahay ma inaad filmaan fiirsataa jeceshahay ma inaad shaqo qabataa jeceshahay wixii aad jeceshahay unbaad sheegaysaa markaasaad hadday hal ay tahana estan waa ka reebaysaa haddii ay ka badan tahana esta ha kuula taalo markaad xifdinaysid
laakiin ayaga kuu soo bandhigaya hadhowtii adiga hobby ama hobbies midka kuu soo bandhigaanba intii aad wax leedahay oo dhan waxaa waaye u tax ish hobbies markaan imaano ish lisa gern aniga waxaan jeclahay akhrinta geschichtliche Bücher waxaan jeclahay akhrinta buwaagta taariikhda ah ama buwaagta taariikhda ka hadlayo und Fußball spielen iyo dheelitaanka banooniga Beruf xifradda ich bin waxaan ahay Automechaniker aniga waxaan ahay ich bin Beruf ich bin waxaan ahay Automechaniker aniga waxaan ahay makaaniga baabuurta ayaan ahay vom Beruf xifrad ahaan xifradaydu waa makaanig baabuur auto waa baabuur mechanicna waxaa waayo waxaa la yiraahdo makaanikada waxa aynu niraahno waay marka makaanigaas waxay ka dhigan tahay farsamo yaqaanka baabuurta iyo ka dhigan tahay Soomaaliga saxda ah laakiin anaga makaanig baan dhahnaa mana lihin maxaa la dhihi jiray makaanigan luqadanada ma ahan vom Beruf xifrad ahaan meinen Beruf xifradaydana habe ich in Somalia gelernt waxaan ku bartay xifradan oo ah makaanignimada waxaan ku bartay Soomaaliya in Deutschland arbeite ich in einer Firma Aushilfe waxaan u shaqeeyaa shirkad Jarmalka in Deutschland Jarmalkana dhacdiisa markaan joogana arbeite ich waxaan ka shaqeeyaa in einer Firma Aushilfe shirkad ayaan ka shaqeeyaa si ku meel gaara shirkad ayaan waxaan uga shaqeeyaa si ku meel gaara macnaha hadduu alla idmo ereygan erayo kale oo markaan ka hadlayno shaqada iyo shaqaalaha yaynu ku qaada dhigi doonaa hadduu alla idmo mararka qaar way soo socdaan insha Allah laakiin hadda waxaa u qaadanaysaan si ku meel gaara waxaa jira waxa la yiraahdo shaqada aan dhammaanin iyo shaqa maxaa la jira dhamaato iyo waxyaabahaas oo kale hadduu alla idmo iyo dad isbedeli doono oo qof shirkad ka shaqeeyo soo shirkada ka shaqeeyo shirkad kale u yeerato oo wax u sameeyo haddana ka soo noqdo marka hadduu alla idmo erayadan shaqada iyo shaqaalaha ku saabsan hadduu alla idmo waxaan ayagana ku dhex wadi doonaa codsiga iyo waxyaabaha sababtoo ah codsiga shirkadaha loo qorto ee shaqada marka erayadii la isticmaalayay iyo waxyaabihii dhex marayay iyo wada sheekaysigii iyo shaqada dhexdeedii waxyaabada isticmaalaysay iyo dadkii kula shaqeynayay intuba kamayna hadlin hadduu alla idmo waxaasoo dhan way inoo diyaarsan yihiin markeedaan u tegi doonaa inaan ka hor dhac mar raba marka waxyaabahan awsilfahan iyo waxyaabahan dhanna halkaasaan ku maran doonaa hadduu alla idmo waa wax aad u muhiimsan oo laf dhabar ah oo hadduu alla idmo haddaad fahamtaan aan filayo in badan oo adinkan ka mida inaad ku liibaani doontaan oo waraaqaha inta badan iyo qaabka shaqada iyo shaqaalaha markay tagto aad fahmi doontaan hadduu alla idmo insha Allah aynu ku noqono meeshanadii in Deutschland Jarmalkana arbeite ich waxaan uga shaqeeyaa in einer Firma Aushilfe si ku meel gaara ayaan shirkad uga shaqeeyaa oo shaqadayda ma ahan midda aan dhammaanin ama aan xadidnayn ma ahan Zukunft waxaa la yidhahdaa mustaqbalka maxaad marka ku qorshaysan mustaqbalka dambe in aad noqoto ama aad qabato tusaale shaqo ayaa hadda waad shaqaysaa Soomaaliya waxaa kusoo baratay mechanic oo waxaad ahayd farsamo yaqaanka baabuurtaad ahayd haddana markii aad timid Jarmalka ayadii baad ku shaqaysato shirkad baad uga shaqaysaa walow shaqadu aysan ahayn mid ma dhamaata ah haddana maxaad rabtaa mustaqbalka waad shaqaynaysaa laakiin hadhow meena ayadii bedelataa rabtaa hadhow waxaa jira u tegi doonaa hadduu alla idmo xifradaha la bedeshaa meeshan waxaad arkaysaa qof 2 jeer 3 jeer xifradiisi bedelay macnaha 3 sano hore uu soo qaatay xirfada oo waxyaabo badan uu soo qaatay haddana mar dambe la xumaanaysa uu bedelayaa haddana dhowr sano oo kale u qaadanaya usbil uu sameynaya haddana saas oo kale macnaha xifradaha waa la kala bedeshaa marka ma xifradii harta inaad bedelato mise ayada harta inaad ku shaqayso mise maxaa hamigaada ku jiro waa in ayadana aad ka hadashaa Zukunft marka la yiraahdo später hadhowtina ama mustaqbalkana möchte ich waxaan rabaa wieder inaan alles Automechaniker arbeiten aan kasii shaqeeyo marka ma raba inaan xifradeyda bedele ka dhigan tahay waxaan rabaa hadhowtina mustaqbalka dambana waxaan rabaa inaan ku shaqaysto xifradeyda makaanignimo Zukunft waxaa laga wadaa waa mustaqbal später möchte ich wieder als Automechaniker arbeiten waxaan rabaa hadhowtina inaan xifradeyda kusii shaqaysto und iyo meine Familie
möchte qoyskaygana möchte waxaan rabaa ich auch nach Deutschland holen inaan ayagana Deutschland keeno oo imaadaan ayaan rabaa ich vermisse sie sehr qoyskaygii waan waayey bay ka dhigan tahay marka waxaan rabaa inaan Deutschland iyo Jarmal keeno marka khiyaarta sharafta lahay waa ay fududahay ma dhib badno tan dambe aan ku celiyo oo ah Zukunft später möchte ich wieder als Automechaniker arbeiten und meine Familie möchte ich auch nach Deutschland holen waxaan rabaa in aan aniga mustaqbalka ku sii shaqaysto xirfadeeda makaanignimada ah iyo maxaa la dhihi jiray qoyskaygana inaan Jarmalka keeno maxaa yeelay aniga qoyskeena waa isweynay oo macnaha waanu xiisay ka dhigan tahay akhyaarta sharafta leh marka waxaa la inka rabaa hadduu alla idmo in dadka danaynayo oo A2 ilaa iyo P1 joogo ma ahan dadka aan ka hadlayo dadka B2 ga joogo A2 P1 dadka joogo waxaan inka rabaa haddii aad danaynaysan inaynu sii wadno casharkan oo kale soo qora hadduu alla idmo xaaladda aad tahay ka bedela sanadka hoosna inoogu reeba ka bedela sanadka maxaa la dhihi jiray waxaad kaloo ka bedeshaan magac bedela waxaa bedeshaan goobta aad ku nooshihiin qolalka oo kale ka bedela marka saas oo kale sameeya hadduu alla idmo casharadan ay sidaad u qaadan kartaan ayagoo taxana markasta waxaan idin dhigayaa haddaad ila eegi kartaan hoos hadduu alla idmo akhyaarta sharafta leh marka ugu horeyso waxaad tegaysaa meeshaan playlistiska waynu ku dhufanay intaa kadib saad u joodaan casharkan 2 maalin ka hor ayaan soo geliyay sida uu sheegaya maanta oo 2 ah asagoo kala ku dhufanaysaan waa casharka Jarmalka ah ee ah casuumaada sida waraaqaha casuumaada loo qoro kadib waad ku dhufanaysaan hadday badan yihiin ayaga is shidi doono dhammaan shid badada laakiin hadda midkan waa mid kaligiya waan iska xiraynaa markaan xirna kadibna waxaanu sameynaynaa hoos baynu u soconaynaa fadlan like saara oo commentigina aynu helno meeshaan ku dhufanaysaa oo ah wax badan aan arko ama wax badan arag kadibna meeshaan ayaan ku sii dhufanaynaa waad u jeedaan meeshaan aan tagayna anagoo markaan taas ku dhufanay waa u jeedaa casharka sidiisa ayaa hoos in yaala akhyaarta sharafta lahay waliba waxyaabo aan ka hilmaamay ayaa inta ku jiro oo dheeri ah marka saas oo kale aad u helaysaan hadda kadib hadduu alla idmo halkaas aan idin dhigaya adinkana meesha commentiga aad kusoo qoraysaan waxaad samaysaan hadduu alla idmo inoogu reeba fariimihiina meeshaasna inoo dhiga meeshaan oo kale marka bal aynu eegno akhyaartii casharka ugu dambeeyay ka dhiibatay ra'yigooda hadduu alla idmo hadda wixii ka dambeeya waxaynu soo gudbin doonaa aaraa'diina ayaanu soo gudbin doonaa hadduu alla idmo waana qiimeyn doonaa waana tixgelin doonaa haddii eeba idmo aynu marka hore ku bilowno Fardowsa Qaasim waxay leedahay mahadsanid anigana waxaan ku leeyahay adaa mudan Ismaaciil Xasan waxa uu leeyahay saaxiib adigoo mahadsan inoo soo diyaari beriishti sida loo qoro beriishti waa reportka oo kale waynu u tagi doonaa hadduu alla idmo iyo waxyaabo badan ba beriish noqotaa iyo meelo badan ereygan hal xaba keligiisa ma ahan hal qayb looma qaadan karo waxyaabo badan ayuu noqdaa fasir ahaantiisa marka waad mahadsantahay insha Allah waan isku dayi doonaa hadduu alla idmo Hinde Ciige waxay leedahay assalaamu calaykum wacalaykum assalaam ayaanu leenahay maxaa la dhihi jiray Salmaan waxa uu leeyahay aad u mahadsan tahay walaal adaa mudan walaal waad mahadsantihiin waxaa weeye annaguna hadduu alla idmo inta dadaal iyo waanu dadaali doonaa adinkana like-ta commentiga iyo inaad wixii dadka la wadaagtana aad share tirahdaan hadduu alla idmo inta iyada uga qayb qaata annaguna waan iin jawaabi doonaa hadduu alla idmo sida aad meeshan u jeedaan oo kale annaguna hadduu alla idmo waan iin jawaabi doonaa sida hadda inta ka muuqato kale dadkii jawaabaha waa wada siinaynaa waxaan u saarnay jacaylka loofka ahaa oo qofka inaad jeceshahay iyo maxaa la jira like waan u saarnay dhammaantood haddaad aragtaan waana u jawaabnay hadduu alla idmo waan iin jawaabi doonaa waana tixgelin doonaa maxaa la dhihi jiray ra'yigiina iyo waxyaabaha codsigiina oo aan ka imaanayo hadduu alla idmo akhyaarta sharafta lahay ugu dambeyn anoo jaamacada bisla la socodsiinaya intiina dib dambe ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh